السلام عليكم soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada channelka Bashiir oo aad uga barateen casharo IT ah iyo casharo English ah oo free ah maanta waxaan qaadanaynaa sheekada waxay ku saabsan tahay tuke oomay kadibna waayay weel biyo ku jiraan helay kadibna ka cabi waayay kabacdi afkaar fiican keenay kadibna afkaarta ka faa'iidaystay biyihiina sidaas ku cabay ku soo dhawaada casharka historyga koowaad ama sheekada koowaad weli waxaa la yidhahdaa the 30 crow eygii oomanay ayaa la yidhahdaa okay English baa ku akhrin doonaa kadib baa insha Allah tacaala laqbay doonaa there once lived a young crow in the countryside one summer there was no rain and it was very hot. The crow was very thirsty, but he couldn't find any water. How can I survive? He thought. I must have water or I will die. Just then he saw a farmhouse. Outside the house there was a vase with some water at the bottom. He tried to drink, but he couldn't reach the water inside. The young crow did not know what to do. What to do? He looked against the fire and cried, "Will someone please help me?" sobbed the crow. He cried and cried, but nobody heard him. Finally, he dried his eyes and stood up. He tried knocking over the vase, but it was too heavy. Then he tried breaking it, but he wasn't strong enough. Finally, he had good idea. He began dropping stones into the vase. The water rose to the top. At last, the crow could drink. "Water, what wonderful water," said the crow. "I am glad that I didn't waste all my time by crying. Thinking is much better than crying." Moral of the story: if there is a problem, we have to bring a suitable solution. Necessity is the mother of innovation. Okay, sheekada insha Allah tacaala aan marka laqbayno waxaan kusoo akhrinay English. Okay, there once lived marba waxaa ku noolaay a young crow duka yar dheh crowga marka duka weeye a young crow duka yar ayaa wuxuu ku noolaay the countryside baadiyaha ama miyiga. One summer hal xagaay there wasn't rain wax roob ah ma jirin. It was very hot aad ayay u kululeed. The crow tukaha was very thirsty aad ayuu u oomanaa. But laakiin he couldn't find any water wax biyo ah ma uusan heli karin. How can I survive? Sideen ku noolaanayaa? He thought ayuu ku fikiray. I must have water waa inaan biyo hela ah or ama I will die waan dhiman doonaa ayuu yiraahday. Just then kadib he saw wuxuu arkay a farmhouse guri beer ku yaala ayuu arkay. Marka farmhouse waxaa la dhahaa guriga markuu meel beera ku yaala ama baadiyaha kale guriga beer ku ag yaalo baa la dhahaa farmhouse. Outside dibadda the house guriga there was waxaa jiray a vase dheri ayaa jiray some water at the bottom kaasoo xoogaa yaroo biyaha ay salka uga jireen bottom marka waa salka.
He tried wuxuu isku dayay to drink inuu cabo, but laakiin he couldn't reach ma gaari karin the water biyaha inside ee gudaha ku jira. The young crow dukihii yarka ahaa did not know ma uusan garanaynin what to do wax uu sameeyo ma uusan garanaynin. He licked wuxuu ku dul istaagay against the vase dherigii ayuu ku dul istaagay and cried wuuna booyay ama wuu ooyay. Will someone please help me? Qof i caawinaya ma jira miyaa? Sobbed waxaa ku baroortay ama ku ooyay the crow tukihii ayaa ku baroortay. He cried wuu ooyay and cried wuuna ooyay but laakiin nobody qofnana heard him asaga ma maqlin. Finally ugu dambeyntii wuxuu caddeeyay his eyes indhihiisa ayuu caddeeyay indhahoo taagay and stood up wuuna istaagay. He tried wuxuu isku dayay knocking inuu gargaraaco over the vase dheriga inuu gargaraaco but laakiin it was too heavy aad ayuu u cuslaayay dherigu. Then kabacdina he tried wuxuu isku dayay breaking it inuu jabiyo dheriga but laakiin he wasn't strong enough ma uusan ahayn si ku filan mid u adag. He wasn't tukuhu ma uusan ahayn strong mid adag enough in ku filan yacni dheriga ayaa ka adkaaya laga wadaa. Finally ugu dambeyntii he had wuxuu helay a good idea fikir wanaagsan. He began wuxuu bilaabay dropping stones inuu dhagaxaan ku tuuro into the vase dheriga. The water biyihii slowly rose ayay kor ugu soo kaceen to the top kor ayay soo aadeen. At last ugu dambeyntii the crow tukaha could drink wuu cabi karay biyaha. What wonderful water! Alla maxay biyo la yaab leeyihiin. Said waxaa yidhi the crow tukihii ayaa yidhaahday. I am glad waan ku faraxsanahay that I didn't waste inaanan ku dhumin all my time dhammaan waqtigaygii by crying oohin. Thinking fikirka is much better ayaa ka wanaagsan than crying oohinta ayuu yidhi. Marka sheekadaasi runtii waa sheeko cajiiba oo ku saabsanay tukahaasi markuu baahday fikirka oo keenay. Sheeko ahaana waan u qaadanaynaa luqadana waan ku baranaynaa. Moral of the story sheekada dulucdeeda maxay tahay marka? If haddii there is a problem ay dhibaato jirto we have to bring waa inaan keennaa a suitable solution waa inaan keennaa. Necessity baahida is the mother waa hooyada of innovation ee hindisida ama ikhtiraca. Marka sheekadan runtii sheeko cajiiba waaye erayo badanna waa ka faa'iideynaa luqad ahaanna waa uga faa'iidsanaynaa sheeko ahaan runtii waa u baranaynaa. Cashirkan intaas wuu noogu egyahay intaan ku kulmi doono cashir lamid ah nabadgelyo.